27 Noofembar sanad kasta, malaayiin qof oo ku dhaqan daafaha caalamka ayaa suga maalintan. Waa xilliga ugu badan ee qiimo dhimista dhinaca adeegyada elektarooniga iyo kuwa caadiga looga dalbado ama looga doonto suuqyada adduunka. Inkastoo ay tahay maalin aad u ballaaran, haddana dad aad u yar ayaa og sida ay ku baxday iyo waqtiga ay bilaabantay maalintan Jimcaha Madow iyo sababihii ka dambeeyay in ay caan baxdo. Sidee bay iskaga beddeshay maalintii Jimcaha Madow ahaanshaheedii ay ahayd mid ku aastaysan dhaqaale burbur iyadoo isu beddeshay maalin adduunka badankiisa laga adeegto. Waxa buuxsama goobaha ganacsiga ee kala duwan, waxaana cidhiidhi noqday internetka malaayiin qof oo adeegsanaya maalinta awgeed. Inta lagu guda jiro dhammaadka usbuuca, taasoo ay raado ciidda mahadcelinta ee sanad walba, dadku waxa ay gataan adeegyo kala duwan si gaar ah. Kuwii lagu yaqaanay in sicirkoodu yahay mid qaali ah ayaa waxay noqdaan kuwo lagu heli karo qiimo macquul ah marka laga yimaado rabitaanka iyo tegitaanka meelaha kala duwan ee laga adeegto. Inta lagu guda jiro waxa loo yaqaan Jimcaha Madow, in badan oo dadka ka mid ah waxa kaliya ay ka yaqaanaan waa xiriirka ay la leedahay adeegashada iyo isu diyaarinta u dabaaldega ciidaha. Waxa ay ka bilaabantay sheekada yaray bixinta Jimcaha Madow kadib markii dhaqaale burbur xoog leh ka dhacay Mareykanka markii ay sameeyeen khabiiryahanada lacagta ee Mareykanka ee loo yaqaan Jim Fisk iyo Jay Gould gadashada tiro badan oo dahab ah, iyaga oo rajaynaya inay ka helaan faa'iido aad u badan dib u gadida dahabka kadib markii uu qaaligaroobo. Sida laga soo xigtay qormo uu daabacay wargeyska Daily Telegraph 24 Sebtembar ee sanadkii 1869, waxaa hoos u dhaca aad u ballaaran ku yimid suuqa dahabka ee Mareykanka, waxaana lagu magacaabay hoos u dhaca ballaaran Jimcaha Madow, kaasoo bilaabmay maalin Jimcaha. Fisk iyo Jay waxa ay sheegeen inay noqdeen hantibeel ku darso waqtiga waxay ahaayeen diiwaanada ganacsigu kuwa lagu qoro gacanta. Faa'iidooyinku waxay ahaayeen kuwa lagu qoro midabka madow, halka khasaarahana lagu qori jiray midabka cas. Kontameeyadii qarnigii tagay wuxuu bilaabay askari ka tirsan ciidamada magaalada Philadelphia ee Mareykanku inuu ugu yeedho maalinta Jimcaha Madow, taasoo ku xigta ciidka mahadcelinta, sababtoo ah waxaa dhici jirtay saxmad iyo fowdo ka dhalata dad tiro badan oo kala ah dad adeegato ah iyo dalxiisayaal, kuwaasoo magaalada dalxiis u iman jiray. Waxaana uu u diidi jiray askarta ka shaqaysa saldhigga inay helaan fasax, wuxuuna ku qasbi jiray inay shaqeeyaan saacado dheeraad ah maalinta. Balse fafaalaha adeegashada ee ku xiga maalinta ciidda mahadnaqa waxa uu bilaabmay ka hor in ka badan 20 sano marka laga joogo waqtiga, halka dad tiro badan ay adeegan jireen maalinta. Madaxweynihii hore ee Mareykanka ee lagu magacaabi jiray Franklin D. Roosevelt ayaa go'aansaday sanadkii 1939 inuu ka dhigo u dabaaldega ciidda mahadnaqa usbuuc dhammaystiran, isagoo oo rajaynaya in kala iibsashadu ay dib u soo noolaynayso dhaqaalaha Mareykanka. Waqtiga waxa bilaabmatay maalinta Jimcaha Madow inay ku faafto wadamada kale ee dunida oo ay ugu horeyso dowladda Ingiriisku, halka xaddiga kala iibsashada ee suuqyada Mareykanka maalintii Jimcaha ee sanadkii 2018 uu gaadhay $6 bilyan. Waxaa laga yaabaa inaad ku raaxaysato adeegyo internet ah oo lasoo bandhigo maalinta Jimcaha Madow oo ay sameeyaan dowlado badan sida Jarmalka, Faransiiska, Norway, Canada, Brazil, Romania, Hindiya, Mexico iyo Imaaraadku. Suurtagal ma aha mar walba inaad gadato badeecadaha lasoo bandhigo, kuwaasoo ah kuwa lagu sameeyay qiimo dhimis. In aad tagto meelaha adeegyadaasi yaalaan, waxa kaloo aad ka dalban kartaa goobo ganacsi oo kala duwan kuwaasoo badeecadahooda soo bandhiga iyaga oo isticmaalaya internetka. Geesta kale, dukaamo badan ayaa ka cagajida inay ka qaybgeliyaan iibgeynta badeecadahooda maalinta Jimcaha Madow. Asani daawade waa diyaarintii Cabdicasiis Axmed Xaashi iyo tabintii Cabdiraxmaan Nuux Xaaji Maxamed.